Shirweynaha ururka dhalinyarada Jubbaland ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Shirkan ayaa soconayay muddo 4 bari ah, waxaana muddadaas lagu xoojinayay mideynta iyo isku xirka dhalinyarada Jubbaland. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland ayaana isla xisaabtan dhab ah la sameyn doonta hoggaanka dhalinyarada Jubbaland. Buugga mudnaansiinta baahida dhalinyarada Jubbaland ayaa ka soo baxay muddadii uu soconayay shirka oo ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland ay ku shaqeyn doonto mustaqbalka dhow. Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jubbaland ayaa u dhabar adeegay sidii loo heli lahaa dhalinyaro wax ka beddesha xaaladda dalka. Ugu dambeyn, Abshir Yuusuf Maxamed, agaasime waaxeedka wasaaradda dhalinyarada, ayaa akhriyay warmurtiyeed laga soo saaray shirweynaha dhalinyarada Jubbaland oo ka koobnaa dhowr qodob oo muhiim u ahaa guud ahaan dhalinyarada Jubbaland. alxamdulilah wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa nabiyi lmustafa. asalaamu calaykum dhammaantiin. warmurtiyeedka shirka golaha dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland uga socday degmada Doolow 24 ilaa 27 bisha 7 2019. ugu horeyn, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland iyo guud ahaan golaha dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland waxay u mahad celinayaan guud ahaan golaha dhalinyarada ee gobolka Gedo, gaar ahaan golaha dhalinyarada ee degmada Doolow soo dhaweyntii quruxda badnayd ee qiimaha lahayd, martisoorkii cajiibka ahaa iyo soo dhaweyntii walaalnimo ay u muujiyeen madaxda ka socotay wasaaradda uu hormuud u yahay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland, gudoomiyaasha golayaasha dhalinyarada ee deegaanada xorta ah ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo dhammaan martidii ku sugnayd degmada Doolow. runtii waxay ahayd soo dhaweyn cajiib ah, waxaana leenahay waa mahadsantihiin. shirkan oo ay ka soo qayb galeen golayaasha dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland ee deegaanada xorta ah qaar ka mid ah waxaa hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland, waxaana fududeeyay qabsoomidda shirkan hay-adda UN Habitat. muhiimadda loo qabtay shirkan waxay ahayd isdhexgalka iyo isbarashada dhalinyarada deegaanada Jubbaland, awoodsiinta dhalinyarada ee arrimaha la xiriira ka qayb qaadashada dhismaha nabadda, diyaarinta istiraatiijiyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland iyo sharciyadii ay ku shaqeyn lahaayeen golaha dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland iyo wasaaradda. sidoo kale waxaa ka mid ahaa muhiimadda shirkan waxyaabaha loo qabtay isla xisaabtanka madaxda golayaasha dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland iyo wasaaradda. haddaba gabagabadii shirkan waxaa ka soo baxay qodobada soo socda: in la joogteeyo wada shaqeynta dhalinyarada Jubbaland iyo wasaaradda iyadoo la adkeynayo xiriirka guud ee dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jubbaland iyadoo tixraacaysa fikradihii ka soo baxay dhalinyarada intii uu socday shirkan waxay bilaabi doontaa diyaarinta buuggii siyaasadda shaqo ee dhalinyarada iyadoo la kaashanaysa hay-adaha bahwadaagta la ah wasaaradda, sharcigaasoo hagi doona dhalinyarada iyo wasaaradda wada shaqeyntooda. wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa inay xoogga saarto ka shaqeynta midnimada dhalinyarada iyadoo qorsheyn doonta qabsoomidda kulamada sidaan oo kale ah in lagu qabto dhammaan deegaanada xorta ah ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo jaanis la siin doono degmooyinka kale sida degmada Doolow. agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda golayaashu waxay si daahfurnaan ah ula hadleen dhalinyarada, ula sheekaysteen, ula caweeyeen, ugana jawaabeen su'aalahooda iyadoo la ballan qaaday in tallaabooyin laga qaadi doono baahiyahooda lana kala horumarin doono sida ay u kala mudan yihiin. ugu dambeyn, golaha dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland waxay ugu baaqayaan dhammaan musharaxiinta madaxtinimada ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo cid kastoo ay khusayso oo ay ugu horeyso dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka Jubbaland iyo dhammaan bulshada deegaanka inay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo nabadda deegaanka, lana tixgeliyo rabitaanka bulshada dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo laga shaqeynayo wadajirka, midnimada iyo mudnaanta. waxaana rajaynaynaa in doorashadu ay ku dhacdo si nabad ah, xor ah oo xalaal ah. guud ahaan dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland ee shirkan ka qayb galay iyo wasaaradoodu waxay u mahad celinayaan maamulka degmada Doolow, golaha dhalinyarada degmada Doolow,
bulshada degmada doolow dhammaantood sidii quruxda badnayd ee ay u soo dhaweeyeen ula shaqeeyeen sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa laamaha ammaanka degmada doolow oo runtii ku guuleystay nabadgelyada degmadan oo lagu tiriyay inay tahay degmooyinka ugu nabadda badan deegaanada Jubbaland waxaana u rajaynaynaa in Ilaahay uu u ziyaadiyo waad mahadsantihiin Awil Cabdi Cabdullaahi Labaqiid Jubbaland TV degmada Doolow ee gobolka Gedo.